xooluhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha uu Alle subxaanahu wa tacaala u saqiro uunkiisa oo waxay ina siiyaan caano, hilib, maqaar iyo weliba subag. qof waliba oo haysta 10 neef waxaa lagu tilmaamaa inuu haysto hanti haddii uu yaqaano sida loo xanaaneysto xoolahaasi. quraankuna aayado fara badan ayuu ku tilmaamay xooluhu inay yihiin nimco innaga darteen loo yagleelay, sidoo kalena ay yihiin qurux iyo weliba qaayo, sida aynu ku arki doonno muuqaalkeenna maanta ee ku soo dhawaada saaxiibayaal xalqadeena 14aad ee tixanaheena Ramadaanka. Gacaliyayaal, inta aan gudagelin barnaamijkeena tixanaha ah ee 30 juz iyo 30 fariin, waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe saartaan channelkeena. fadlan ha ilaawina inaad la garaysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina. mahadsanidin. وحو الله سبحانه وتعالى آيات 6 ee سورة النحل كيري: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. waxaa idinkugu sugan xoolaha qurux markaad u soo celinaysaan galabnimadii guriga iyo weliba markaad u fuufinaysaan aroortii daaqa. gacaliyayaal, aayadda barnaamijkeena maanta waxay noo caddaynaysaa in dhaqashada xoolaha ay yihiin qurux iyo weliba mid ka mid ah nimcooyinka aynu moogannahay, waayo xooluhu waxayna siiyaan hilib, maqaar, subag iyo weliba digo oo aan ku bacrisanno beeraheena. culimada qaarkoodna waxa ay xoolaha ku tilmaamaan in laga helo xasilooni iyo weliba deganaansho kolkii aynu daawanayno. aayadaha ka dambeeya aayadda barnaamijkeena maanta waxuu Rabbi subxaanahu wa tacaala inooga waramayaa biyaha, geedka saytuunka iyo weliba geedtimareedka, habeenka, maalinta, qoraxda, dayaxa, badaha iyo weliba sidoo kale isticmaalka maraakiibta. sidoo kale waxuu Alle subxaanahu wa tacaala daha ka qaaday in xoolaha iyo weliba beeruhu yihiin ilo inoogu sugan cibro, duruus iyo weliba nafaqo. waxaa intaasi dheer in xoololeyda ay aad u jecel yihiin 2 xilli. xilliga koowaad waa xilliga subaxda oo ah xilli ay xooluhu candhadooda buuxdo, daaqsinna ay diyaar u yihiin. xilliga labaad waa xilliga galabta oo ay xooluhu daaq ka soo dhargeyn ayna u caraabayaan xiradooda. labadaas xillina waa kolka ay xoololeydu listaan xoolahooda ayna aad u daalacdaan muuqooda guud. marka aynu eegno dhinacyada nolosha, wax waliba oo inagu hareeraysan waxaa ku jiro duruus iyo weliba cibro qaadasho. sidoo kale waxaynu ka helnaa xoolaha hilib, caano iyo weliba nafaqo. oo cilmibaaristii ugu dambeeyay waxay caddeeyeen in maalinba maalinta ka dambaysa ay siyaadayaan shirkadaha soo saaro hilibka. dunideenana waxaa sanadkii la soo saaraa 361 milyan oo tan oo hilib ah. 69.3 milyan oo tan oo hilib ahna waxaa laga soo saaraa lo'da. dalka Mareykanka oo kaliyana waxa uu sanadkii la soo dhaafay uu soo saaray 12.3 milyan oo tan oo hilib ah, taas oo ka dhigan in Mareykanka oo kaliya uu soo saaro 20% hilibka laga cuno adduunka. sidoo kale 30 sano ee u dambeeyay waxaa kor u kacay wax soo saarka caanaha oo 1992 524 milyan oo tan oo caano ah ayaa la soo saaray, halka 2022 oo kaliya la soo saaray 930 milyan oo tan oo caano ah, taas oo ka dhigan in 77% wax soo saarka caanaha uu siyaaday, iyadoona 22% ee caanaha adduunka laga soo saaro dalka Hindiya. sidoo kale 81% caanaha dunida laga isticmaalo ayaa ah caanaha lo'da, halka caanaha laga soo saaro geela lagu qiyaaso 2.85 milyan oo tan. wax soo saarka hilibka geela ayaa isagana laga isticmaalaa badiba wadamada Islaamka, waxaana hogaaminaya wax soo saarka caanaha iyo weliba hilibka geela dalka Sacuudiga. haddaba dalkeena oo ku caan ah dhaqashada geela ayaa la sheegaa in laga helo tiro dhan
6 ilaa 7.3 milyan oo geel ah. waxaana ilaa iyo haatan u isticmaalnaa gaadiid ahaan, caano ahaan, hilib ahaan, iyo weliba hanti ahaan. se nasiib xumo, ilaa iyo haatan dalkeenu ma uusan gaarin heer uu dhoofiyo hilibka iyo weliba caanaha geela. dhab ahaantii dhaqashada xoolaha iyo weliba tabcashada beeraha waa habka ugu wanaagsan uguna fudud ee uu qofku ka samayn karo dakhli iyo weliba dhaqaale xad dhaaf ah. si 90% dadkeenu ma oga, oo waa dad reer guura ah oo uu ku furan yahay safar iyo weliba inay dhisaan dal aanan dalkooda ahayn. ee Allah subxaanahu wa ta'aala ha ina fahansiiyo qiimaha dalkeena iyo weliba qaayaha dhaqashada xoolaha. ugu dambayna gacaliyayaal, allaha qaadirka ah ee iska leh labada daaroodba ha ina waafajiyo xaqa, hana inagu dilo diinta islaamka. dalka iyo dadkana aynu u duceyno saaxiibayaal inta aynu ku guda jirno maalmaha barakeysan ee bisha Ramadaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.